اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. waxaan isku dayi doonaa daris kooban in sha allahu tacaala oo ku saabsan طرق min طرق العلم siiba masalada la yidhaahdo alqiraa'a oo waqtiyadan dambe waxaad moodaa waxna waa la akhriyaa oo waa la dhigaa haddana ma soo baxaan dad طulaab الcilmi xaqiiqiina ama wax lama barto aqoontii meelaha lagu waday cilmi dhagood bay dhaafi weyday wuxuu dadku dhagaha un ka dhagaysto marka waxaan rabaa inaan waxoogaa soo bandhigo ku saabsiisan salafi lumma ama ummaddii muslimiinta ahayd culamadeedii iyo dadkeedii hore iyo bal siduu ahaan jiray wax akhriskooda ama wax akhriska say u qiimayn jireen ama say uga faa'iidayn jireen waynu barbar dhigno wadcigan casriga ee maanta lagu nool yahay iyo sida dadku ay u isticmaaleen siiba dadka muslimiinta ama caalamulislaami ugu horreyn waxaynu naqaanaa qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu horeeyey uu soo dejiyey say culamaa ilxadiis tilmaamayaan awal maa nazal oo qur-aana waxay ku tilmaamaan gaarulxiraa markuu ku jiray inay ku soo degtay suuradda iqra bismi rabbika aladii khalaq ilaahay uu nebi moxamed leeyay calayhi salaatu wasalaam iqra bismi rabbik akhri la leeyay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo waxyiga iyo waxa lagu soo dejiyey akhri walxaal aad kaalmaysanayso ama ku bilaabanayso isimka rabbiga ama akhri adigoo magaca rabbiga ku akhrinaya yacnii idankiisa adigoo ku akhrinaya rabbi subxaana wa tacaala uu ku wakiishay ama akhri ilaahay magaciisa laftiisa akhri saddexda tafsiir baa sheekh catiya saalim fii adwaa'i lbayaan uu saaraya ayan kaanat shanta aayadood ee ugu horeysa ilaahay subxaana wa tacaala laba goor buu erayga iqra'a soo celiyey iqra bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدح شيء رب سبحانه وتعالى هل كانوا كتل المامية بدوا مسألة القراءة ولا سوع العلي وإلهي سبحانه وتعالى مركه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق مركه للي اقرأ وربك الأكرم mar saddexaad leeyahay alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam laba shay oo kale oo cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala ugu manno sheeganaya dadka iyo inuu qalamka baray inay wax ku qoraan suurad kaleo qur-aanka ka mid ah rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa qalinkaasi wax lagu qorayo nuun waalqalami wamaa yasturuun qalinka iyo waxay qorayaan malaa'igtu baan ku dhaartay baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala suwarka kale ee isla makiga ee weliba dhowrkaa sannadood ee ugu horreeya soo degay faqra'uu maa tayasara min alqur-aanka baa ka mid ah idan markaad eegto qur-aanka wixii ugu horreeyey nebiga ku soo dega calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen wax ka warramaya cilmi iyo qiraa'o iyo qalim iyadoo la og yahay bii'ada uu ku soo degtay inay ahayd abcad bi'a can alqiraa'ati waalqalami waalcilm nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii uu la noolaa iyo bulshadii uu ka dhashay waxay dhahdaan min mucjizaat bay ka mid tahay in ummad aan qalinku qiimo ugu fadhinin oo cilmigu qiimo ugu fadhinin oo jaahiliye ku dhex nool waxa koowaad ee loo sheegaa uu noqdo qalimka iyo waxqorkiisa looga warramo oo hadduu ahaan lahayd meel thaqaafa taalloo cilmi yaallaanoo caynkan oo laga warramo markaa qalin iyo wixii la nooca waxaa la odhan kari lahaa dee waa min waxyilbiya ah waa wixii environmentka laga ogaaday laakiin waa environment dadka wax qoraabo fara ku tiris yihiin jahliguu tiro badan yahay aqooni aanay jirin
waxaad ka garan kartaa inta badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qur-aanka ku soo celceliyay mas'alada cilmi iyo fawaa'idda ku jirta iyo waxaas mar rabo markaa baabka inaan ka warramo laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo qiraa'adu ama wax akhrinta ummadda wax akhridaa bay yidhaahdaan waa ummad koraysa ama kor u socota maanta umamka horukacooda iyo horumarkooda waxyaabaa lagu qiimeeyo ee muashiraadka duwalka horumaray ama horumarka waxaan la yidhaahdaba lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah ummadda iyo inta ay wax akhrido illiteracygu intuu ku leegyahay waxaa la yidhahdaa ummaddaasi boqolkiiba intaasaa wax akhrida idan sida ay u kala badan yihiin umamka qaar baa waxaa la yidhahdaa hadda cidaan wax akhrini ma joogto walidaalika waxay tilmaamaysaa baa la leeyahay ummadda tani thaqaafa inay leedahay ama aqoonta waxaa la yidhahdaa inay qiimo agteeda ku leedahay umamku maanta dunida waxay u kala horumarsan yihiin bay yidhaahdaan sida ay qiraa'ada iyo cilmiga hantida ay ku bixiyaan u kala badan tahay umamka maanta dunida ka taliya waxbarashada iyo waxa ku saabsan GBD-ga waddanku uu leeyahay inta ugu badan bay ku bixiyaan halka dunida saddexaad laga yaabo 1% inuu noqdo waxyaabaha ay u qorsheeyaan inuu ku baxo tacliinta iyo waxa la halka ah qiraa'adu ayuha ikhwa waxay yidhaahdaan haddii cunadu ay jidhka quudiso wax akhrisku bay dhahaan waa ghadaa'i alcuquul waa caqliga waxyaabaha kobciya waxaa lagu tilmaamay inuu yahay rafcun liljahli waa qofka oo iska durkinaya waxgarasho la'aan waxaa lagu tilmaamay inay tahay qofka sida wax u qiimeeyo inay ku korodho siday aqoontiisu u badato waxaa lagu tilmaamaa inay tahay waa naafida ama waa daaqad kaaga furmaysa bay leeyihin cuquusha bini aadamka qofka wax akhrinaya wuxuu akhrinayaa bay leeyihin bini aadamka cuquushiisa wixii ugu fiicnayd ee uu soo saaray wax akhrisku waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waxaan xuduud iyo zamaan toona lahayn qofka bay dhahaa cimrigiisu waa wax yar oo tirsan laakiin qofka wax akhriya waa ziyaada fi lcumri bay yidhahdaan waa qof cumrigiisa kororsanaya waa ziyaada fi tajriba waayo waxa aad akhrinaysaa wuxuu kordhinayaa tajaarib qofka kani uu ku helay 10 sannadood buu hal kitaab ku qoray idan 10 sannadood ee cumriga ka mid ahaa adigu waxaad ku akhriday dhowr saacadood baad waxaad ku heshay 10 sano wax qiimahooda uu joogay in la sameeyo ayaa adigu waxaad ku heshay dhowr saacadood walidaalika waxaa lagu tilmaamaa zamanku xad ma leh oo waxay leeyihiin aqoontu wax akhrisku waa qofkoo isku dayaya dunida intii maskax soo martay inuu la sheekaysto cabaaqirat alcaalam maanta markaad maktabada tagtay kutubta islaamiyiinta aad akhrido waxa weeyaan wixii caqli weyn muslimiinta soo maray wixii ay qoreen kaanama aad imaamu shaafici iyo raggii la nooc ahaa la warramayso ama ay ku warramayaan waxay yidhaahdaan akhrisku waa waxaan makaanku xadaynin ama meeli xadaynin oo dad badan oo aanad la kulmi karteen ama aanad arki karteen baad arkaysa oo aad la fadhiisanaysaa si kale haddaynu u tilmaamno waagii hore cilmiga shafaaha qura lagu qaadan karayay inaad qofka u tagto oo aad afkiisa ka soo dhagaysato laakiin markii ay dadku wixii ay cilmi hayeen waraaqa geliyeen ay gudaha ku qoreen waxa fududaaday inaad waqti kasta aad dib u heli karto xataa iyadoo aan lahaynin aqoon-yahankii ama sheekhii ama khabiirkii waxa kan qoray iyadoo aan lahaynin in si fudud loo heli karo ummadda markaa aan abnaadeeda iyo dadkeedu mustawaha aqoontoodu aanu mid kor u socdo ahayn waa ummad bay yidhaahdaan maanta caalamka la joogo aan la socon karaynin bale caalamkan cusub waxay yidhaahdaan xataa mustawaha xoogsigu wuxuu ku xidhmay bay yidhaahdeen mustawaha aqooneed ee aada leedahay oo dadka wax aan akhrinin waxna qorinin shaqooyinka inta usoo hadhay baaba maxduuda bay yidhaahdaan waxaa shaqaba soo hadhay uu qofku qaban karo ayaa wax maxduuda ah si kale markaan u tilmaamno waxay yidhahdaan maanta macaarifta dunidu siday usii badanayso sanad walba bay yidhahdaan aqoonta tan sayniska ah maalan 10 to 20% baa aging uu ku dhacaa bay yidhahdaan 10 ilaa 20 ayaa gabowba
haddaad wax akhriyi weydo macnaheedu waxa weeyaan aqoonta aad xambaarsan tahay sanad kasta 10% ka mid ah laga baxay. taa macnaheedu waxa weeyaan 10 sano dhowr iyo 10 sanadood markaad nooshay haddii aanad dib wax u akhrinin macluumaadkaad sidataa waa macluumaad gaboobay oo dunida aan ka soconayn ama laga shaqaynayn. walidaalka waxay yidhahdaan 30 sanadood ee ugu dambeeyey aqoonta maanta dunida taalaaba le 90% waxa la cusboonaysiiyay bay dhahaan 30 sanadood ee ugu dambeeyay oo dib wax badan ay ku soo kordheen. maadaama arinku caynka tahay xataa caalamka dad yowgii gumaystay markay rabeen dadku inay horumarka ka ilaaliyaan waxay ka ilaaliyeen wax akhriska. مثلا waddankan Mareykanka la yiraahdo ninka madowga ku dhaqan markii Afrika laga soo raray dad badan oo Afrika laga soo raray dad waxna qora waxna akhriya aqoonna la bay haayeen siiba qaybtii muslimiinta hayda caalamka islaamiga laga soo raray siiba dad culamaa ba xataa ku jiray. markii Mareykanka la keenay si loo gumaysto waxa laga mamnuucay ninka madowga inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo ama adoon ha noqdo ama xor ha noqdo wuxuu doonaya ha ahaado. waxa laga reebay haba yaraatee shacabkaas dhammaantii inaanay waxba akhriyi karin way waxa fududaanaysa bay leeyihiin in la gumaysan karo ama la hayn karo. haddii dadku aanay waxna akhrinin waxna qorin waxa fudud in la gumaysan karo. walidaalka baa waxa loo arkayay Mareykanka waagiisii hore ninka madow haddii qiraa'o lagu qabto waxay jariimo qaanuunku u ciqaabayo. haddii la arko nin madow oo wax akhrinaya waxay jariima qaanuunkuna u ogol yahay in la ciqaabo. qiraa'adu marka ama wax akhrisku waa miciyaarka ama waxa lagu qiimeeyo ummadda horumarkeeda. waxaana yidhahdaan noloshan maanta casriga ah dee la'aanteed maba jirto xataa alqiraa'a tawdiifiya bay yidhahdaan. waxaad qiyaastaa magaaladan ay degan tihiin oo aan traffic waxaan ku qoran lahayn oo raashinka waxaan ku dul qoran lahayn oo dawada waxaan ku dul qoran lahayn ama se dadku aanay akhriyi karaynin noloshu say noqon lahayd. waxaad qiyaastaa magaaladu aan adresses lahayn waagi hore dee waxba lagu qori jirin soo maaha. waxaad qiyaastaa Toronto aan adres ku qorayn wallahi wax traffic sign aanu qorayn wax raashin ku dul qoran aanu jirin يعني waxay noqon lahayd nolol adag oo sacaba in la noolaan karo. walidaalka waxay yiraahdaan maanta nolosha casriga dambe iyadu qiraa'o la'aantu suurta galba maaha. haddaba qiraa'adu waxa ka asala inay tahay cimrigii oo ziyaadinayso. ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu quraanka inoogu tilmaamayaa cimriga iyo qiimaha uu leeyahay. quraan badan baa rabbi wuxuu ku dhaaranayaa waqtiga wadduha wal-layli idha saja والعصر إن الإنسان لفي خسر إيه وحي لمده. أما بأو النبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك مالتا قيامة كزول ما يان قمدي سلولكو يعني والله حين إياه إلا إيوه أفر شيء لويديو أفر تشيء لما الشيء با عمرك كصاب سيسا تامعنا هذو حويان وحيابا وفي عن قفك وعمرك سكو حساب كو استعمالي كراه ومسألة القراءة.